saakay waxaa ilaahay mahadiisa aan nimid garoonka caalamiga ee aadan cadde international airport magaalada muqdisho Soomaaliya aan maanta oo sabti ay tahay taariikhda 23 December ayaan halkan nimid annagoo sugootinayno una duceynayno aan caafimaadna insha Allah safar caafimaad oo guul leh u rajeynayno walaasheen Faiza Maxamed Cabdi oo runtii xaalad aad u adag ku sugnayd oo 16 sano kaliya jirta laakiin waxaan aaminsanahay marka la isgarab galo loona duceeyo la isku dadaalo inuu ilaahay caafimaad soo siin doono insha Allah safarkeedana uu noqon doono safar caafimaad oo guul leh Faiza xaaladeeda iyo arrimaha caafimaad wax hadal lagu koobi karo ma aha annaga haddii aan nahay maamul gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ilaahay wuuna waafajiyay waan ognahay tabarteen inta ay tahay laakiin waa isku tashanay inaan walaashan garab istaagno aan qof kale wax u weydiin waqti kale aysan ka lumin awoodeena waxay tahay la garab istaagno dalkii maanta u dirno istaalada midka ugu fiican la geeyo annaga aan garab istaagno waxaan ka codsanaa ummad Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaad u soo duceysaan Faiza Maxamed Cabdi xaalad runtii qof 16 jira oo gabar yar ah xaaladda ay martay xaalad sahlan ma aha waxaan ka codsanaa u soo wada duceysaan garab istaagtaan waqti badan ma qaadanaysa haddii saas la isku garab istaago aabaheed iyo hooyadeed oo safar ku wehelin doono oo ay u baahan tahay waqtigan adag waxaan ayagana ilaahay uga baray inuu ilaahay qalbiga u hagaajiyo qalbiga u dejiyo kuna kalsoonada inaan garab taaganahay ducaan la garab taaganahay kaalmaan la garab taaganahay bini'aadanimo la garab taaganahay soomaalinimo la garab taaganahay muslimnimo oo waajib nagu ah la garab taaganahay waxaan mar kale dadka codsanayaa dadka jooga gaar ahaan dalka Turkiga magaalada Istanbul Soomaalida joogta inaad u istaagtaan gabadhaas sidaad wehel ugu noqon lahaydeen ummadda kale Soomaaliya meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanayaa gabadhan xaaladeeda xaalad sahlan ma aha annaga wixii waajib waa qabanay waana garab istaagayna waana hubinayna insha Allah intuu ilaahay caafimaad ka soo siin doono ayadoo faraxsan caafimaad qabtana ilaahay waxaan ka beenay inuu nabad nagu soo celiyo